kulankan oo ay ku yeesheen qaar ka mid ah culimada diinka iyo ashraafta gobolka Banaadir ay ugu hadleen arrimaha masjidka Shariif Aydruus X Afleershe ee ku yaala degmada Boondheer ee gobolka Banaadir kaasi oo taariikh fog ku leh faafinta diinta Islaamka lana aasaasay 1932 waxayna culimadu ay sheegeen in masjidka maamulkiisu ay haystaan dad gaar ah kuwaasi oo maamulkii ahin jiray masjidka ka hor istaagay in ay maamulaan waxayna madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay ka codsadeen inay soo farageliyaan xaaladda masjidka qaar ka mid ah culimada diinka oo ka hadlay kulanka ayaa ka codsaday madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo maamulka gobolka Banaadir inay wax ka qabtaan dadka dhibaatooyinka ku haya masjidkaasi صاحب السجادة والولاية محفل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادر مسجد شريف عيدروس ببونديري اكس افليرشي هل كان وحن عبش ودرايا مدحوينها صوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو يو برا منستر كيسا مدن محمد حسين روبلة قدومي على قبل بنادر عمر مدن عمر فينش عبشرنا وحكي كوبان تاي ألين كسابسن مساجد أبوه هيجا من مساجد كسرود السي شعبي الصوماليا ومبكاس سوق شنغاني ويلي أفليرشي مساجد كسر حالة أساسي وانا المستري كون يستقال بقول صدين لمرة أكوجي شريف عدروس أصلا هاي نادي في مساجدك أكوجي وحكتاجي وصية وشيء جاي إن مساجد كاس أزود انتو إن وقف لله تعالى إلى يوم الدين لأحفاده ثم أولادهم إلى أولادهم إلى يوم الدين وعنقوسي الداري للأسجد ثم فالأسجد نينكو أبو صالح صن ومامولي كرمسات كاس إنه مامولو يصيب دارو دقاء كدب يصدق كده بربر كده كجري مساتك يعتروا باناضي هذا بربري وحنسكت دايني لبدا كون يتم تدودا إيه دد محسنين أن رادينو يرولال كيا مقادا دقنا محسنين تسكت داي وحوالي من المحسن إن دد كلا محسنين كلا يقتل الخيرية ومسات كاس إيدا مسترين وحيدا مسترين لبدا كون لباتن كسنة كان بش سبتمبر وهذا نوبو فري حفلة رسمية ودولة كسوق قبقشي إيو قدوميها gobolka muqdisho oo kiladooda hadda dadkii dhameeyeen markay mas'uuliyadda dhameeyeen misaadka oo mas'uuliyadda ah inay soo wareejiyaan dadkii xaq u lahaayeen istii farac u lahaayeen inay u diidaan kulliyan waxaa kala jiro dadkii imaamka ahaan jiray qaadinka misaadka iyo khatiibka oo 30 sano soo hayay in xaqooda banaanka loo tuuray waxaa bilowday inuu gacanta laga mrugsado awoodna la sheegto anagana awoodi waxaas ma sheeganino ilaahan talada saarana masaajidadaas ay marka dadkii asaasay oo dhisay biligoodi ayaga xaq u leh maxaa yeelay ilaahi wuxuu yiri jalla wa ala inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ilaahi wuxuu idin amraya amaanaadka inaad u celisaan dadkii lahaayeen aayadan sababu nuzuul ay leedahay waxay ku soo degtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa markii maka ay furteen ayaa sayyidina cali ayuu diray wuxuu u diray kacbada ninka furaheedii haaya wuxuu ahaa cuthmaan ibn abi talha cuthmaan uu u tagay wuxuu yidhi furaha keen ma dhiiwaaye ayuu yidhi war nabi moxamed ayaa roo furaha keen kacbada inuu ku dukado rabaa inuu dhex galo ma dhiiwaayuu yidhi sayyidina cali xoog ayuu ugu faromaroojiyey nabigu u keenay sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi waa kan furihi yaa rasuul allah waa loo furay nabiga buu galay wuu ku dukaday bilaal ayuu amray kor inuu sii fuulo uu aadaamo isla markii waxaa soo degtay aayadan ina allaha ya'murukum an tu'addu al-amaanaati ilaa ahliha ilaahay wuxuu idin amrayaa amaanaadka inaad u celisaan dadkii gacanta ku haayay hadda cuthmaan ibn abi talha kaafir ayuu ahaa gaal u ahaa isagoo gaal ah ilaahay wuxuu amray in loo celiyo furaha isla markii sayyidina cali furihii wuu qaaday
cuhmaanu u geeyey wuxuu ku yidhi hoo furahaadi wuu yaabay wuxuu yidhi haddaay xoog ayaad iga qaadeen furaha haddana si tartiibaad igu celisay maxaa dhacay waxba moogida uu yidhi ilaahay adiga dartaadii aayad ayuu soo dejiyey aayaddan ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahlihaa anigoo gaal ah muu ilaahay ani dartaydii aayad u soo dejiyey haa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah wuu soo islaamay bismillah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعيقا وحواية دكتور سيد شيخ أبا علي شيخ محمد شيخ علي مية مسألة دان هدا آن شريفك كهدلاي آية قرآن أو نوشيغ وكل انتهي مسألة أدلة أهان لكن وحان شيغي غبا أنيقا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيا وحيري اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله قفك مؤمنك فراسة ديسي هلا إلالي أو هلا حفية هلا دورو محايا لي إن هلا وحمكو أركان وحو وحكو أركان نورك إلهي مسجد كان أو حد شريفك أو لسي shariifku markuu bogay ayaa haddana wuxuu noo qoray kitaabkii nafiiska ahay oo weliba waa kitaab oo marjiciya ah oo la yidhaahdo buqyatul aamaali fii taariikhi suumaal waa kitaab cajiib badan sayidka shariifka ka-anna waxaad u malaynaysaaba in wax uu dareemayey in masjidkan dardaarankiisa soo dhaafay oo qorana uu dhaafay haddana kitaabkiisu kusii caddeeyey safxadda ninkii u baahanow waa laguu sheegaaye ee kitaabkaa ka fiiri uu ku cadcadaynaya shariifka inaad masjidkan oo waqafay carruurtiisana ayaga inay naadir ka yihiin iyo durriyadooda hadba midka oo murshidka ay la awlaad iskuhal ma ah midaa murshid aho oo xaqiiqadii ilaalinayo marka waxaad u malaynaysaabo dhacdadan ما إلهي تسييبه إلهي أوليدي سكمل يا شريفك مساجد كاسي وحا يمدي دد محسنين أو يرى المساجد كانوا قصينا مسجد كي مكة لسان بسميسي أو صعدين مدو إلا شنبل إلا لحبل ولا قرآن مركي مسجد كأي دميان سيدا عادوين كإسلام كالوية قالوا مسجد كمركة وقفك لسو أو لسو ابتغاء مرضات الله وإنه كسور جيادتك نادرين تعا نادرين وحاوها هير شريف عيدروس ومات نقل جوه شريف أحمد شريف علي عيدروس صاحب الولاية والسجادة لمحفل رسول الله الرنتي مدعين dadkii waa qabsadeen furahoodii oo masaajidka ku dhiseen ayagaa iska haysta dadkii masaajidka dhisay ilaa hadda maamulkii iyo naadiriintii iyo dadkii ku abtirsanaya masjidkaas inay ku soo wareejiyaan waa laga waysan yahay marka mudane madaxweyne mudane ra-iisul wasaare guddoomiyaha baarlamaanka duqa magaalada muqdisho dhammaan wasaarat al-awqaaf waxaan u sheegaynaa arrintaas inay soo farageliyaan inay wax ka qabtaan lagu soo wareejiyo dadkii naadiriinta ahaa dadkii xaqa u lahaa arrintan ayaa ku soo aadaysay xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay wado dadaalo ay ku dardargelinayso sidii bulshadu ay u heli lahayd cadaalad isla markaana hantida la kala haysto loogu celin lahaa dadka xaqa u leh